waxaan nahay wahdiga dugsiyada. Assalaamu calaykum dhammaantiin meel kasta oo joogtaan. waxaanu halka ka bilaabanaa xiisadaheenna online-ka ah cutubka 11 loo yaqaano biyaha. haddaynu biyaha xogaa ka sheekayno ambaynu wax ka tilmaano biyaha waxaa dha biyuhu waa shayga ugu muhiimsan ee nolosha aadamaha, sababtoo ah waa shayga ugu badan jidhka aadamuhu ka kooban yahay. oo jidhkeena tusaale ahaan haddii inagu iska soo qaadno 70% jidhkeena waxaa ka kooban yahay biyo weeyaan. maxaa biya? dhiiggiiba biyo ah, ilmadiiba biyo ah, dheecaanadii oo dhanba biyo ah. 30 soo hadhay ayaa noqonaya waxyaabihii kale. oo maxaa ka mid ah? lafaha ka mid ah. biyuhu waa halka nolosha aadamuhu ka soo bilaabantay. oo noolaha bilowgiisa muxuu ahaa? biyo ayaa ahaa. isaguna qodobka loo sheegaya in biyihii nolosha muhiim u yihiin. biyuhu waxay deegaan u yihiin xayawaan deegaan. tusaale ahaan maxaa ka mid ah? kalluunkii baa ka mid ah, waxyaabo badda ku nool dhammaan biyaha ku noolaayo kale. maadaama biyuhu noqdeen deegaan, iyaguna qodob tilmaamaya in biyuhu maxay nolosha muhiim yihiin. haddaba cutubkeena 11 gudihiisa waxaan ku qaadan doonaa tusmada cutubka waxaa ka mid ah siyaabaha biyaha loo dhaamiyo loona kaydiyo. sida loo dhaamiyo kolkaan eegano waxaan ka eeganaa 2 hab, dhinaca magaalada iyo dhinaca miyiga. kaydintan waxaan ka eegi doonaa xagga magaalada iyo xagga miyiga. waxaan kaloo ku qaadan doonaa cutubkan gudihiisa diqowga biyaha. oo diqowga biyaha waxaan odhan doonaa, waxaan eegi doonaa waa maxay diqowga biyuhu, biyaha maxaa diqeeya, haddii biyo diqooy maxaa isbedela, waxyaabahaas oo dhan ku eegi doonaa. qodobka u dambeeya cutubkan wuxuu noqon doonaa siyaabaha loo sifeeyo biyaha diqow. biyihii diqoobay si loo sifeynaa looga dhigi lahaa biyo saafiya in ku qaadan doonaa. haddaan soo qaadno ciwaankeena koowaad oo ahaa siyaabaha biyaha loo dhaamiyo loona kaydiyo. siyaabaha biyaha loo dhaamiyo loona kaydiyo. biyaha waxaa loo dhaamiyaa 2 hab baa loo dhaamiyaa. waa hab qadiimiya, habna waa habkan imika cusub ee imika la isticmaalo. haddaba habkii qadiimiga ah laga soo baxay habka waxa biyaha lagu soo dhaamin jiray waxa loo yaqaano xoolaha laakiinse waa xoolihii geela kiisa lab maxaa loo yaqaanaa? awr baa loo yaqaanaa. iyadoo la adeegsanayo dhiilo. maxaa la adeegsanayo? dhiilo. oo dhiishii tusaale ahaan caynkan bay ahayd. saasoo kale dhiish ahayd. dhiishu ma laha dhig la qabto, laakiin waxaa lagu xidhaa saab baa loo sameeyaa. kadib saabkaa loo sameeyey waxa uu leeyahay daldaloolu leeyahay. saabkaasi ayaa la qabanayaa, saabka ayaa lagu xidhaya xadhigga, waxaana loogu xidhi doonaa dhiisha kale ee dhinaca kale laga soo laalaadin doono ee la isku xidhaa. habkaas waa hab qadiimi. habna waa habkan imkan adeegsano. waxaa la adeegsaday maxay? gawaadhi baa la adeegsaday. maxaa ka mid ah? booyadaha ka mid ah. inaga maanta magaalada maxaa inoo keenay biyihii? booyadaha keena. booyadii baa soo dhaaminaya, ceelkii ka soo qaadayaan, inaga inoo keeneen. 2 hab baa biyaha loo dhaamiyo. siyaabaha dadka miyiga u kaydsadaan biyaha waxaa ka mid ah. haddaba dadka miyiga waxay u kaydsadaan 2 hab, iyagoo ay ku xidhan tahay meeshay degan yihiin. waxaa la yidhi qodobka koowaad dadka degan meelaha aan dhagaxa lahayn, macnihii aan lafta ahayn, waa meelaha loo adeegsado dalagga laga qodo kale. waa meel bilaa lafa bilaa dhagaxa. iyagu biyaha waxay ku kaydsadaan baco. oo talo sidee bacda u kaydsanayaan? dhulkiibaa san loo qodayaa. marka dhulka sidaa loo qodo, haddii la isidhaa sibireeya, sibirkii ma qaban uu soo dumaya, waayo maxaa jilicsan? dhulkaa jilicsan. kadib maxaa la dhigayaa? bac baa sidaa loo goglaya. bacdaa cusubee sidaa loo goglay maxay u saamaxaysaa inay biyaha maxay ku shubtaan. kadib biyaha ku shubta maxay u samaynayaan? waa u kaydinayaan. laakiin dadka miyiga ee degan meelaha dhagaxa sida lafahoo kale maxay biyaha ku kaydsadaan? barkado wax kale maaha, waa godkii bacda oo kale la qoday. kadib godkaa bacda la qoday meesha waa dhagax, waxaa loo adeegsanayaa sibidh. waxaa la sibidhaynayaa gunta iyo dhinacyada godka. 2 hab bay dadka miyiga u kaydsadaan. dadka degan meelaha bilaa dhagaxa maxay adeegsanayaan? bac bay ku kaydinayaan. kaas waa bacdii.
kana waa maxay barkadii weyn. haddaba anay siyaabaha biyaha dadka magaalada ka haysta maxay taangi xaafidin maxaa yaala faadumay taangi baa yaala ama taangi waxa yaala 7 foosto qaada ama ku 5 qaada ama ku 8 qaada ama ku 10 qaada kolba ilaa iyo inta tiin. halkaa waxaan kasii bilaabanaa diqowga biyaha qaybta labaad ee cutubka. halkaa waxaa noo muuqda maxay diqowgii biyaha weyn. haddaba diqowga biyaha waxaan ku qeexanaa waa wasakhowga biyaha ay ku keenaan eegada ila soco. diqowga biyaha waa wasakhowga biyaha ku keenaan walxaha sunta leh ama dhibaatada leh. labada walxood diqowga biyaha ku keenaan baa loo yaqaan diqowga biyaha. biyaha waxa diqaysa walax suna oo dhibaato leh. maxaa kamid ah suntii, maxaa kamid ah cayayaanka lagu buufinayo ka tii dalka loo adeegsado waxyaabahaas oo kale maxay way saameynaysaa biyo diqaynaysa. ama waxa kale biyaha diqeeya walxaha dhibaato leh. maxaa kamid ah qashankii baa kamid ah, biyihii bulaacada kamid ah, waxyaabahaas biyaha maxay diqeeya. diqowga biyahan qeexay maxaan ku qeexay waa wasakhowga biyaha ay ku keenaan walxaha sunta leh ama dhibaatada. labada walxood saameyntii biyaha saameeyaan ayaa loo yaqaan diqowga biyaha. haddaba waxa haddii ay biyuhu diqoobaan waxa isbedela laba shay waa dhadhanka faadumay iyo midabka. labada astaamood baa isbedelaya. haddii biyuhu diqoobaan waxa isbedelaya dhadhanka iyo midabka biyaha. walxaha biyaha diqeeya waxaa kamid ah waxaa kamid ah laba dhibcood nudqatayn baa kala dhigay. maxaa kamid ah qashinka biyaha lagu qubaa kamid ah. oo haddii qashinkii tusaale ahaan ceelkii ku yaala ama ballaygii baa qayb nagu yaala ballaygeena haddii ku qubno dhammaan qashinka oo kale haddii qashinka buuxno maxaa dhacaya biyaha waa diqoobeen ama midabkii baa isbedeli ama dhadhankii baa isbedeli. waxaa kaloo biyaha diqeeya qodobka labaad bulaacada oo loo ogolaado amba lagu sii daayo ilaha biyaha. oo bulaacadii haddii bulaacadii afka loo saaro ballaygii amba ilihii biyaha maxaa dhacaya biyaha wasakhoobeen oo biyihii wasakhda ahaa ay kasoo baxayay bulaacadeen haddii loo ogolaado inay gaadhaan ilihii biyaha maxaa dhacaya biyihii waa diqoobeen. iyo saliidaha ku qubta biyaha tusaale ahaan doon bas biyihii sidaanay saliidii kadib doontii waxaa dalooshamay saliidii baa dalooshantay kadib saliidii biyaha ku daatay maxay keenaysaa way diqaynaysaa biyaha. halkaa ciwaanka inoo muuqdo ciwaanku waxa uu yahay astaamaha biyaha saafiga. astaamaha biyaha saafiga. biyaha saafiga waxaa la yidhaha dhadhan ma laha. dhadhan maxay ma laha oo dhadhankii macaanaa macaan noogu soo qaad ma laha. mana laha dhadhankii dhanaanaa inoogu soo qaad mana laha dhadhankii qadhaadha inoogu soo qaad. saddexdaa dhadhan baa la sheegaa soo maaha. ama waxaa la dhadhamiyaa macaan ama waa qadhaadh ama waa macaan. saddexdaa dhadhan biyuhu midna ma laha. biyuhu midab ma laha baa lagu oo biyaha maanta odhan mayna waa caddaan. caddaanka waxaa loo yaqaanaa shaadhkaad xidhantiin oo kale. shaadhka cad baa la odhanayaa caddaan laakiin biyuhu caddaan maaha. biyo markaa maxay midab ma laha. midab cad ma laha eegada midab buluugana ma laha midab cawlana ma laha. biyuhu midab ma laha. waxaa diqeeya baa yidhi ilaha biyaha falalka aadamuu sameeyo sida eeg. waxaa diqeeya biyaha falalka aadamuu sameeyo sida maxay baa lagu yidhi iyagoo qashinka ku dhex quba biyaha. maxaa qashinka ku dhex quba biyaha oo halkeena waxa bay noogu yaala tusaale ahaan cabdicasiisow halkaa maxaa noogu yaala waa ballaygeeni ama waa ceelkeeni. kadib halkan bay faaduma xashiish ka soo qaada xaafadoodii halkan ku taala halkan bay lasoo kadib maxay samaysaa way ku qubtaa. qashinka ay faaduma biyaha ku qubtay maxay keenayaan in biyihii wasakhoobaan. iyaga oo dadku maxay baa la yidhi sunta dalagga u ogolaaday inay gaadho ilaha biyaha. oo tusaale halkan baan bustaan ku lahaa heega halkaas bustaan ku lahaa
bustaankaygaas waxaan ku buufiyey sunta cayayaanka kadib waxaan u ogolaaday inay sunta cayayaankan ku buufiyo tamaandhada ama basasheeda inay gaadho biyaha anna maxaan wasakheeyey biyihii falka ayaa keenay anigaa keenay iyagoo saliiduhu ku dhex qubtaan ku dhex daadiyay biyaha ama ku dhex qubtaan oo doonba biyihii halkan socotay kanbaa webigii ahaa webiga halkaas socday ama badii kadib doonbaa sidii saliidii doontii maxay samaysay biyihiiba saliidiiba ka daatay oo doontii tusaalahaan waxay soo socotayba in badan biyo soo socotay kadib intaa badan biyo kasoo daadeen saliidu waxay keeneen biyihii bay dakhaneen iyaga oo ku dhex quba qashinka kimikaalada wixii kimika oo soo hadhay dhammaan hadday ku dhex qubaan biyihii maxay keeneen iyagana way wasakhayneen qaybta u dambaysa cutubkeena waxaa la yidhaahdaa siyaabaha loo sifeeyey biyaha duqoobay biyihii duqoobay soo sheegnay ee midabkooga iyo dhadhankooga isbedelay ee aan la isticmaalin sideeba nooga dhignaa hab la isticmaalay biyo la isticmaali karo saafiya haddaba laba hab aynu qaadan doonaa habka saddexaadna waan ka tego waxaad ka eegi doontaa buuggaaga habka koowaad waxaa loo yaqaanaa habka koowaad waa hab kimikaad baa la yidhahdaa habka koowaad waa maxay waa hab kimikaad habka kimikaad waa hab kimikaad baa la yidhahdaa waxa uu biyaha ka dhigaa kuwa saafiya waxaana uu ka dilaa dhammaan noolihii keenayay maxay xanuunada maxaa loo yaqaan noolaha maxaa loo yaqaanaa jeermis baa loo yaqaanaa habka maxaa loo yaqaanaa habka ku sifeynta iyo tuma koloreynta waa sida biyo sifeeyo kale biyo sifeeyo maxaa loo adeegsadaa biyaha inuu maxay ka dhigo inuu sifeeyo habkaas waa habka hadda maxaa sheegaysaa habka ku sifeynta iyo koloreynta habka labaad waxaa dhaa waa habka shaandhaynta laakiin habkan waxa uu kala soocayaa biyaha iyo qashinka laakiin biyaha kama dilaya dhammaan wixii maxay ahaa jeermis ahaa labada habba biyaha lagu sifeeyay iyo habka saddexaad oo buugaa ka eegi doonto aada u dhegeyso waxaad fahmi weydo soo weydi insha allahu tacaala waxaad ka shaqaysaa buug layliga ku yaala buuggaaga waxaana idigu soo gudbin doontaa maxaa yeelay anaad soo gudbin doonta insha allahu tacaala waxaana ku leeyahay wash your hands and stay at home sidaa assalaamu calaykum